qof nafti halliga ah ayaa caawa fiidkii isku qarxiyay afaafka hore ee saldhigga booliiska degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Qasaaraha uu qaraxaasi reebay ayaa ahaa geerida inta la xaqiijiyay ilaa 6 qof oo nafti halligihii uu ka mid yahay isla markaana ay ku dhaawacmeen 6 kale. dadka dhintay waxaa ka mid ah Ekis Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Baashane taliyihii saldhigga degmada Waaberi ee uu qaraxu ka dhacay iyo sidoo kale Ekis Gaashaanle Cabdi Baasid Maxamuud Cagay taliye ku-xigeenkii hore ee qaybta Weliyow Cadde iyo 3 qof oo ciidanka ka mid ahaa iyo qof shacab oo diris la ahaa saldhigga. Afayeenka ciidamada booliiska Saadiq Doodisho oo warbaahinta la hadlay ayaa weerarkaasi iyo qasaaraha ka dhashayba faahfaahin ka bixiyay. 10 May 2021 inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allahu naxariisto caawa fiidkii ayaa qof nafti halliga ah wuxuu isku qarxiyay afaafka hore ee saldhigga booliiska degmada Waaberi ee gobolka Banaadir halkaasuu ku halligay naftiisa iyo naf xubno kale oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ahaa isla markaana qayb ka ah ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo goobta ku sugnaa. waxay ahayd 10kii dambe ee bisha Ramadaan iyadoo dadkii ay afureen oo la iska fadhiyo meesha ayuu ku yimid qofka nafti halligaha ah oo qarxiyay naftiisa iyo nafta dad kale oo waxba ka galabsanin. waa 10kii bishii dambe Ramadaan waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u weydiinaynaa inuu u naxariisto intii ku dhaawacantana Ilaahay u boogadhayo. saas oo kaleeto dadka meesha wax ku gaareen tira ahaan waa ilaa 6 qof oo dhimasho ah iyo 6 dhaawac ah oo iyo qofkii nafti halliga ahaa oo naftiisa qarribay. 6daas dhimashada waxaa ku jira taliyihii saldhigga booliiska degmada Waaberi Ekis Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Baashane Ilaahay naxariista janno ha siiyo. sidaas oo kale Ekis Gaashaanle Cabdi Baasid Maxamuud Cagay oo ahaa taliyihii hore qaybta Weliyow Cadde ayaa isna ku dhaawacmay qaraxa qofkii nafti halligaha uu la soo beegsaday. intaasi waa inta dhimashada ah. dhaawacyadana waxaa kale oo ku jira xubno kale oo ka tirsan ciidanka sida taliyihii qaybta booliiska Weliyow Cadde oo isna dhaawac ah iyo saraakiil kale oo 2 ilaa 3 ah. marka dhimashadu waa 6 qof dhaawacuna waa 6 kale. waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u weydiinaynaa inuu naxariistii janno siiyo oo dhammaantood u naxariisto intii ku dhimatay inta dhaawacana Ilaahay u boogadhayo. qarxan ayaa waxa uu imaanaya xilli magaalada Muqdisho amnigeeda uu mudooyinkii ugu dambeeyay aad u degnaa isla markaana ay yaraadeen weerarada ay kooxda Al-Shabaab ka fulinaysay magaalada Muqdisho maadaama laamaha ammaanka ay sameynayeen feejignaan dheeraad ah. Maxamuud Soofaysan warbaahinta qaranka Muqdisho.